Daarusalaam City oo xaafad cusub ayaa waxa laga hirgeliyay magaalada Muqdisho waxaana xaafadaasi dhisaya bangiga Salaam Bank iyada oo la sheegay in xaafadaasi loo dhameystiray adeegyada aasaasiga ah warkani waxa mar kale inoo soo diray wariye Maxamed Cali Weheliye munaasabad lagu daahfuray xaafada cusub ee Daarusalaam City ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Daarusalaam City waa xaafad cusub oo ka kooban qaybo kala duwan ee dhismayaal guryo ah waxaana maalgeliyay Salaam Bank. xaafadaasi waxaa loo dhameystiray adeegyada biyaha, waxbarashada, korontada, masjidka lagu cibaadeysto, suuqyada, wadooyin laami ah, goobaha ay caruurta ku ciyaaraan, meelaha baabuurta la dhigto iyo adeegyo kale oo muhiim u ah. arka astaan u ah xaafada Daarusalaam City ayaa ugu horeyn indhahaadu qabanayaan marka aad booqato taasi oo ay hoos maraan wadooyin laami ah oo loo sameeyay waxaana maalgeliyay Salaam Bank. saxaafada ayaa la geeyay dhismayaasha qurxoon oo lagu sameeyay xaafada cusub ee Daarusalaam. daahfurka Daarusalaam City waxaa ka qayb galay ganacsato, qurba joog iyo qaybaha bulshada oo halkaasi lagu marti qaaday. madaxa suuqeynta xaafada cusub ee Daarusalaam City Fuad Ahmed Warsame ayaa sharaxaad ka bixiyay daahfurka xaafadaasi Daarusalaam. ku soo dhawaada dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan soo bandhignay maanta Daarusalaam City oo lagu diyaariyay adeegga bulshada oo dhan. Daarusalaam City waa real estate oo laga hirgeliyay magaalada Muqdisho. qof kasta ay u furan tahay inay maal gashato. Daarusalaam City waxaan sameynay waxaan u diyaarnay jid laami ah, waxaan diyaarnay adeegga bulshada oo dhan haddii aan lahayd goobaha caafimaadka, goobaha waxbarashada kala duwan, dugsi sare, dhexe iyo hoose iyo kii xanaanada loogu talagalay carruurta yaryar lagu tarbiyanayo. sidoo kale waxaan diyaarnay masjid weyn oo lagu cibaadeysta. waxaan kaloo diyaarnay garden waxa kaloo leeyahay goobo lagu ciyaaro oo sportiska, goobo malaahiga carruurta lagu madadaaliyo. waxa kaloo leeyahay stall. waxa kaloo leeyahay jid laami ah. ku soo dhawaada Daarusalaam Village. xafladda maantay waxaan sambalkan u soo diyaarinay oo ummad fara badan ay ka soo qayb gashay. waxaan soo bandhigaynay adeegyadii bulshada maadaama ay dhammaadeen, suuqii, caafimaadkii, waxbarashadii, masaajidkii, wadadii iyo guriyihii sambalka ahaa. waxaan u soo bandhignay maantay inaan ummadda gaarsiino meel walba ay joogaan, inaan meel walba ay gaarsiino guryihii dalabaadkoodii iyo qaab qof kasta uu dhisan karaa, qof kasta u furan tahay. Maxamed Cali Weheliye, Universal TV, magaalada Muqdisho.